madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa u sheegay dalalka Afrikaanka inay isku diyaariyaan ka hortagga xaaladii ugu xumeyd ee xilli cudurka corona uu ku baahay dalal ka tirsan qaaradda. Gudaha Afrika waxa cudurka ugu dhintay 16 qof. 6 qof ayaa ku geeriyooday wadanka Masar, halka 6 kalena ay ugu dhimantay isla xanuunkaasi wadanka Algeria. 2 qof ayaa sidoo kale ugu dhintay wadanka Morocco, halka Burkina Faso iyo Suudaan ay ugu geeriyoodeen xanuunkaasi min 1 qof. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ugu baaqay dalalka Afrikaanka inay hurdada iskaga kacaan si looga hortago faafitaanka cudurkan. Afrika waa inay hurdada iskaga kacdo. Waxaan aragnay sida dalalka kale uu ugu baahay fayraska kadib markii ay sare u kaceen kiisaskaasi, ayaa uu yiri madaxa WHO oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP. Koonfur Afrika kiisaska la xaqiijiyay cudurka corona waxay gaarayaan 116 kiis. Dhawaan ay ahayd markii hay'adda caafimaadka adduunku ay ugu baaqday dalalka inay baaraan qof kastoo looga shakiyay fayraska corona si loo xakameeyo cudurka corona. Xamse Geelle, Cable TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.